Salaamullah saaxiibayaal. Maanta waxaan ka sheekayn doonaa sidee Bakistaan ku noqotay waddanka keli ee Muslimka ah ee haysta hubka nukliyeerka iyo sababtii ku qasabtay samaysashada hubka waxkumaada. Fadlan nagu soo biir muuqaalkana like saar, aragtidaadana nagula wadaag kommentiga. Colaadda u dhaxaysa Bakistaan iyo India waxay soo bilaabatay sanadkii 1947 markii uu dhammaaday xukunkii Ingiriiska ee gobolka. Kala go'aas wuxuu ahaa mid dhiig badan ku daatay, iyadoo loo qaybiyey dhulweynihii Hindiya la isku oran jiray laba qaybood iyadoo lagu saleeyay diinta ay dadkaas kala haysteen. Dad badan ayaa ku dhintay qax iyo rabshado dhex maray dadka Muslimiinta ah iyo kuwa Hinduuga ah, waxaana halkaas ka dhashay muranka gobolka Kashmir oo ilaa maanta ah unugga colaadda. Bakistaan waxay dareemaysay in qaybsigaas lagu dulmiyey, taas oo dhalisay in durbadiiba uu qarxo dagaalkii koowaad ee sanadkii 1947. Dagaalkaas wuxuu ahaa mid ay labada dhinac isku mari waayeen, laakiin wuxuu Bakistaan ku reebay dhaawac weyn oo dhanka dhulka ah. Sanadkii 1965 labada dal waxay mar kale isku arkeen dagaal aad u qaraar oo ka dhacay xadka labada dal. Inkasta oo Bakistaan ay isku dayday inay guulo ka gaarto gobolka Kashmir, haddana waxaa mar kale dagaalkaas looga itaal roonaaday dalka Bakistaan. Markii saddexaad dagaalkii dhex maray wadamada India iyo Bakistaan ee dhacay sanadkii 1971 wuxuu ahaa isku dhac militari oo saameyn weyn ku yeeshay khariidada siyaasadeed ee Koonfurta Aasiya, isagoo horseeday dhalashada dalka Bangladesh. Colaadan waxay markii hore ka dhalatay khilaaf siyaasadeed iyo mid bulsho oo u dhexeeyay dadka ku noolaa bariga dalkii markaas la isku oran jiray Bakistaan iyo dowladdii dhexe ee fadhiday dhanka galbeed. Kadib doorashadii guud ee dhacday sanadkii 1970 oo uu ku guulaystay xisbiga Awaami League ee bariga Bakistaan balse loo diiday inuu xukunka la wareego, waxaa bilowday kacdoon shacab iyo iska horimaad hubeysan. Bishii Maarso sanadkii 1971 ciidanka Bakistaan waxay bilaabeen howlgal militari oo aad u baaxad weyn oo ka dhan ahaa dhaqdhaqaaqyadii ka jiray dhanka bari, taas oo keentay in malaayiin qaxooti ah ay u gudbaan dalka India. Xaaladaas waxay sababtay in dowladda India oo markaas ay hogaaminaysay ra'iisul wasaare Indira Gandhi ay taageero dhanka militariga ah iyo mid farsamo siiso xoogagga gooni ugoosadka ee bariga Bakistaan ee loo yaqaanay Mukti Bahini. Dagaalku wuxuu si rasmi ah u qarxay 3 bishii Diseembar sanadkii 1971 kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Bakistaan ay weeraro ku qaadeen saldhigyo dhanka cirka ah oo ay leedahay India, taas oo keentay in India ay si buuxda ugu biirto dagaalka dhulka, badda iyo cirka. Muddo 13 maalmood ah oo uu socday dagaal xooggan, ciidanka India iyo kuwa jabhadii Mukti Bahini waxay godoomiyeen magaalada Dhaka, iyagoo ka gooyay saadkii iyo isgaarsiintii ciidanka Bakistaan ee ku sugnaa dhanka bari. 16 bishii Diseembar sanadkii 1971 Generaal Niazi oo ahaa taliyaha ciidanka Bakistaan ee bariga ayaa saxiixay heshiiskii isu dhiibidda ee magaalada Dhaka, isagoo ay weheliyaan ku dhowaad 900 oo kun oo askari iyo dad rayid ah oo u dhashay Bakistaan. Tallaabadaas waxay soo afjartay dagaalkii, waxayna keentay in barigii Bakistaan uu si rasmi ah u noqdo dalka Bangladesh, taas oo ahayd guuldarradii militari ee ugu weynayd ee soo marta dalka Bakistaan tan iyo markii la aas-aasay sanadkii 1947. Xaaladaas adag iyo kala go'i waddanka kadib, waxaa talada dalka la wareegay Zulfiqar Ali Bhutto. Bhutto wuxuu dadka u ballanqaaday inay dib u heli doonaan sharaftii ka luntay. Wuxuu xaqiiqsaday inay Bakistaan aysan marnaba hubka caadiga ah kaga guulaysan karin India, sidaas darteed wuxuu bilaabay barnaamijka nukliyeerka. Isaga oo aad u caraysan wuxuu mar yidhi, haddii ay nagu qaadanayso inaan cawska cunno, waxaan samaysan doonaa bamka nukliyeerka. Sanadkii 1977 Generaal Zia-ul Haq ayaa Afgembi ku qabsaday dalka, Bhuttona waa la xiray. Sanadkii 1979 waxaa lagu fuliyey xukun daldalaad ah. Inkasta oo Bhutto uu dhintay, haddana barnaamijkii ma istaagin. Ugu dambayn bishii May ee sanadkii 1989 Bakistaan waxay ka fuliyeen 5 tijaabo oo nukliyeer ah buuraha Jagai ee gobolka Balochistan. Maalintaas dhulku wuxuu noqday mid midabkiisu isbedelay. Bakistaanna waxay si rasmi ah ugu biirtay kooxda yar ee haysata hubka waxkumaada.
Guushaas waxay meesha ka saartay cabsidii ay ka qabeen India waxayna u soo celisay kalsoonidii ay lumiyeen saddexdii dagaal ee hore.